The city is growing upwards and outwards with astonishing speed. Jakarta now covers more than 250 square miles of what was once lush coastal plains and forested hills. I'm really struggling to see an area of green space that's bigger than a football field. Jakarta Just like a big- magaaladu koriyo dibad buu u koraysaa si xawli ah. Jakarta hadda waxay ku fadhidaa in ka badan 250 mayl oo laba jibaaran. Waxay la mid tahay sidii badweyn oo cawl ah iyo mid bunni ah, waxaana sababay dhismayaasha dhaadheer ee magaalada dhan walba laga dhisay. Mid ka mid ah natiijooyinka isbeddelka ku dhacay Jakarta ayaa si gaar ah saameyn xun ugu yeeshay dadka ku nool halkan. magaaladan ayaa si aad ah u sii quusaysa halka ay tilmaamayso saadaasha in 2050 ay in badan oo ka mid ah magaaladan aadka u weyn aydan noqon doonto mid biyaha hoosta ka marta maadaama jooga baddu aad sare ugu kacayo. quusitaankan waxaa sababay kobaca degdeg ah ee magaalada Jakarta sameynayso iyo jooga badda oo sare u kacaya mar walba. ku darsa culayska baaxadda leh ee magaalada Jakarta ayaa si xawli ah u degaya meelaha qaar ilaa 25 sentimitir sanadkii ayay magaaladu degaysaa. deegaano badan ayaa u nugul fatahaadaha, balse dadka ku nool xaafadaha xeebaha ee danyarta ah ayaa dhibaatada ugu badan ay soo gaartaa mar walba. isbeddelkii ugu xumaa ee isbeddelka dhulka ayaa ka dhacay waqooyiga Jakarta iyadoo hoos u dhaca dhulka lagu qiyaasay qiyaastii 4.9 sentimitir sanadkii. dadka degan Jakarta waxay isticmaalaan ceelal iyaga u gaar ah si ay biyaha macaan uga helaan dhulka hoostiisa. biyo qodista joogtada ah ee ceelasha dhulka ayaa soo saaray meel bannaan oo madhan oo dhulka hoostiisa ah, taasoo noqonaysa meesha ugu weyn ee dhulka uu ka degayo. horumarin dhismayaal waaweyn, hoteelo, dukaamo ayaa sidoo kale dhiirigeliyay isticmaalka xad-dhaafka ah ee biyaha dhulka hoostiisa ee magaalada Jakarta. dowladda hoose ee caasimadda Jakarta ayaa macaamiisheeda ka mamnuucday inay qotaan biyaha dhulka hoostiisa mara. si kastaba ha ahaatee weli xal waara lagama gaadhin arrintan. jooga badda ayaa korukac ballaadhan sameynaya marba marka kasii dambaysa. cilmi baadhis ayaa lagu ogaaday in korukaca jooga badda uu gaadhayo sanadkii 3 milimitir, halka sanadihii 2016 ilaa 2018 celcelis ahaan jooga dhulka uu kor u kacay 3.7 milimitir. marba marka ka dambaysa jooga baddu si joogta ayuu u korayaa marka la barbardhigo sanadihii 1900 oo uu ahaa 1.7 milimitir, halka 3.2 milimitir uu ahaa sanadkii 2000. sidoo kale halka la saadaalinayo inuu gaadhi karo jooga baddu korukac dhan 2 mitir sanadka 2100. Indonesia ayaa ku dhawaaqday in caasimadeeda cusub loogu yeedhi doono Nusantara. waxay timid markii baarlamaanka uu ansixiyay hindisa sharciyeedka caasimadda Jakarta, taasoo si degdeg ah u quusaysa fikradda ah in la dhiso caasimad cusub oo u jirta 1300. jasiiradda Borneo ayaa markii ugu horeysay la soo jeediyay 2019, laakiin dadka dhaleeceeya ayaa sheegay in magaca cusub uu noqon doono mid jahwareer ku abuura bulshaweynta Indonesia.
jakarta waxay noqotay mid camiran wasakhaysan oo si xawli ah usii quusaysa, taas oo ay ugu wacan tahay soo saarista xaddhaafka ah ee dhulka biyaha hoostiisa mara. waxay hoy u tahay in ka badan 10 milyan oo qof. dhulka ay ku taala juqraafi ahaan waa dhul aad u jilicsan oo ku yaala jasiiradda weyn ee Java. wasiirka qorsheynta ayaa sheegay in magaca cusub ee caasimadda uu doortay madaxweynaha sababtoo ah waxa uu ka turjumayaa juqraafiga Indonesia oo ah mid caan ah. haddii qorshahan la hirgeliyo waxa ay ku kici doontaa lacag lagu qiyaasay 466 trilyan oo rubiya oo u dhiganta 32 bilyan oo dollar, waxayna noqon doontaa mid ka mid ah mashaariicaha kaabayaasha dhaqaalaha ah ee ugu weyn ee ay weligeed samayso dowladda Indonesia. Indonesia ma aha wadankii ugu horeeyay ee caasimadiisa bedela. Brazil, Pakistan, Nigeria ayaa dhammaantood u bedelay magaalooyin cusub oo la qorsheeyay laguna guuleystay.